dalku dagaal ku jiraa nimankaas cadowga ayaynu dagaal kula jirnaa muddaba runtii dagaalku waa soo socday dee ummadda Soomaaliyeed waa dagaalku si 20 jirsanaya ay nimankaas lagula jiraan laakiin muddadii 2 sano hadda la soo dhaafay runtii dhaawac adag baa la gaarsiiyey haddana waad ogtihiin dagaal adag baa socda wax badan bay isugu soo sheekeeyeen filimo badan bay soo fiirsadeen marka ayagoo aad u fakarayay oo si fiican aragti leh muayana meel u socda ayay soo duuleen laakiin ummadda Soomaaliyeed way ka hortagtay waana la dirirayaa dagaalku soo socda marka waxaan u baahannahay dagaalkaas in loo midoobo waxaan u baahannahay in la dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan ciidamada qaran si nimankaas la soo gaceliyo marka weerdoba waa hilo marka waxaa loo baahan yahay nimankaas inaan fursad la siin inaan loo propagandayn in maxaan ku dhahaa loo midoobo oo la iska celiyo ayaan insha Allah dawladdu juhdi kasta ay waxay ku bixinaysaa sidii nimankaas dalka looga sifayn lahaa not only in la iska celiyo maaha laakiin qorshuhu waxaa weeye nimankaas ilaahay idankiis in laga eliminate gareeyo dadka dalka maadaama aan dalkeenu marnaba horumarna ku tallaabsan karin mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho midna kuma tallaabsan karo inta ay dadkaas ama nimankaas cadowga ay inta ay dalka joogaan ay meelo ka mid ah xukumayaan dalkaani dabar baa ku xiran marka si dabarka dalka looga gooyo oo u tallaabsado waxaa laga maarmaanaya inaan u midowno inaan nimankaas dhaafin kulligeed shacab iyo xukuumad iyo siyaasi cid walba waxa weeye aynu u midowno insha Allah waana loo midaysan yahay dadku Soomaaliyeed oo midaysan yihiin waan iska celinaynaa ilaahay idinkiis waana ka xoreynaa dalka waxyaabaha aan ka baran karay fiican ee milishaan ka barna waxa waaye waa nidaamka waa transparent wax oo dhan waa sidaas inaan ka baranno oo ka faa'iideysano waxyaabaha yarka waxaa ka mid ah in saan sheegay wax kasta la institutionalize gareey dadka hadda joogay wadanka Malaysia dad aad u jecel waa waxa ka baran karno inaan dalkeena jeclaano oo inuu ama haynoo xumaada ama haynoo samaada aan iimaansano oo aan degno oo aynu dhaxsinka ka baxno iyo heeryadan ina saaranayno geediganahay qofku uu rabo inuu diyaar u yahay inuu daqiiqad kasta inuu baxo oo faraha ku taagay qodobka labaad Maleeshiyaanka waxaa laga baran karaa in loo shaqeeyo hab midaysan hab group ah loo shaqeeyo way ogtihiin Maleeshiyaanka qof Maleeshiyaan oo kaligiis wax baranay ma aragti kaligiis wax akhrisanay ma aragti kaligiis wax ma akhristaan kaligiis wax ma bartaan waa dad ku tababaran iskuulka lagaga soo baray in working group la ku shaqeeyaan sidoo group inay u shaqeeyaan oo san qofka si individual ah uma socdo qof Maleeshiyaan oo kaligiis ka socda xataa inay aragto way adag tahay waa inuu qof uu la socdaa ama group isla socdaa oo dad isla socdaa yihiin marka way isku xiran yihiin individualism ku yahay marka inaan ka baranno in wax la wada yeesho wax la isla shaqeeyo la isla socdo wax la wada yeesho group working si midaysan loo wada sameeyay waxay la tahay Maleeshiyaanku wax laga baran karo oo fiican inuu yahay waxyaabaha aan isleeyahay waa laga baran karaa Maleeshiyaanka waxaa ka mid ah nidaamka waa dad fawdada ka soo horjeeda sidoo waa dhaweyd waxaan isku daynay inaan bal dalkan haray maxaad si sariic ah ugu soo dhaqaajin kartaan oo soo gaarsiin kartaan Maleeshiyaadkii baa iska aadnay oo waxaan ka soo qaadanay waxa la yiraahdo national transformation plan marka NTP baan ka soo helay marka niman
waxaa waaye meesha joogaan tagnay in la yidhaahdo Idris Jala ayaan u yeernanoo bakaalaya nala taliyo wax nala toos marka waa ka faa'iidnay runtii dadka Soomaaliyeed in badan oo hadda halkan fadhido oo ganacsatadu ay ku jiraan ayaa ka qayb ahaa dadkii ka qayb qaatay hawshaas waxayna runtii aan ka soo saarnay maxaan ku dhahaa outcome aad u qurux badan oo aad u fiican oo haddaynu fulino runtii awoodna u yeelana aan fulino dalkan bedeli kara dhaqaalihiisa iyo arrimihiisa bulsho hadday tahay aqoon iyo hadday tahay caafimaad intaba bedeli kara ayaa meeshaan ka soo baxay waxaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin mar kale waxaan leeyahay hambalyo reer Malaysia waxaanan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo afurkan wanaagsan caawana saan sheegay aynu xagga alla u jeedsano ilaahayna barino waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.